wafdi ballaaran uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin Axmed oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda horumarinta ciyaaraha xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga qorshaynta qaranka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga dastuurka iyo xiriirka golayaasha gaashaandhigga wadarta wasiirada oo habeennimadii xalay ku hoyatay degmada Garadiga galbeedka gobolka Sanaag ayaa saaka subaxnimadii hore kormeertay halka uu ka socdo dhismaha wadada xiriirinaysa gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer waxaana halka wasiirka uga warbixiyay habka ay u socoto dhismaha wadada maareeya ku-xigeenka wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo jidadka Somaliland Mustafa Faarax Qalab wasiirada qaranka maanta halkan wasiiradii ugu waaweyn marayaan waxaanu halkan ku joognaa oo halkan noo yaala gaadiid aad u fara badan waxaan ugu soo booqtay saacadda wasiir Maxamed Kaahin aad noogu timi qabyatira oo ka shishaysa kal sheekh inta u dhaxaysa ee aanu sida haadka u soo jeernay wad garan kartaa halkan waxa loo jooga laba sayd baan wadada ka wadnaa sayd waa halkan oo wuxuu ku sii socdaa fadhigaab saydna fadhigaab uu ka yimi waxaanu samayn doonaa bisha soo socota hadii la yiraahdo say saddexaad oo aan u diyaarinay agab dawladdu leedahay oo Djibouti maanta ka soo degay oo ka badan ilaa 10 gaari oo dhow oo cagafyadii leh waxaanu keeni doonaa meesha la yiraahdo garka sidaas awgeed waxa wadada aanu samaynay 110 kilomitir waa kii madaxweynuhu ku khudbadeeyay 101 kilomitir golaha maalintii dhawaato waxaanu ku darnay intii 9 kilomitir saa awgeed wadada waxa noo haraya inta u dhaxaysa oo qura gar adag ilaa ya burco waxaan ugu talagalay saddexda sayd ee aanu samaynayno inaanu saddex qaybood u qaybano in walba 20 kilomitir siino dabeetana sanadka soo socda bartamihiisa ay wadadaas inaga diyaar garowdo waxaanu u jeednaa meesha la yiraahdo Oodweyne sida la noo sheegay waxaan aad halkan uga mahadnaqaynaa wasiirka hawlaha guud ee gaadiidka iyo maareeyaha hay'adda wadooyinka oo tacafar badan in geliyay gaadiidka halkan yaala xukuumadda cusub ayaa waxay ku dartay gaadiid aad u fara badan oo ka badan 40 gaari wax ka badan baan soo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa isna halka ka hadlay kol rag halkan maraya qaarkood waxaanu idinka soo bilownay halkii buurtii hadda uu sheegay Mustafa kal sheekh shisheysay ayaan isku soo aragnay hawlo dheer baa ku soo socoteen hawlaheena qaranku baa ka shaqeynaysaan wadooyinku muhiim bay inoo yihiin annagu hadda hawlo gooniya baan u soconaa waanu idin dhaafi kara weynaa waan idin salaameynaa waan idin dhiiri gelinaynaa awalna waa shaqeynayseen ilaahay khayr ha idin siiyo allana ha idin hawl yareeyo aad baan idin salaameynaa wa salaamu calaykum isku soo wada duubo wasiiradan oo ka tirsan xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu wadaa in safarkoodu daaran yahay ka howlgalka iyo nabadeynta colaad muddooyinkii ugu dambeeyay ka soo cusboonaatay qaybo ka mid ah gobolka Sanaag waa Raan Maxamed Raan telefishinka caalamiga Ariel TV gudaha degmada Gardag.